بسم الله الرحمن الرحيم هو يعني قو هالكن طبنكي هرده أيوم بليدي اللي بان بالله هذا طبنا تبدأ بحوان بحي قاعد ودين تري بالكرة وحنو أنا قصيص عنا وماشي الصباح ريد ليلا مرينا وأنا حافظي أن ولقي تجناية وأيام بوق يدتك وسوقنا قلتك أنا ماشي محاكا دعيبان السري وحنو يمي أذكر بان تشوتسي مركا waxaa meesha ka dhacay baa ma garanayo ilaa annaga la nagu sugayaaba qadarka ilaahay aniga juuqba ma odhan saasay nimankii noo soo riyeenoo dadkii iyo dumar badan baan noo hayno waxaan hooya magaadhiga laydiin soo markaa ma niman dress xiran bay ahaayeen niman askara bay haayeen hebel waanu haynaa foor gaadhiga lambarkiisi bay sheegayaan qofaan warbalukaadiya gaadhiga ninkii lahaa waydunu geyni hana ridinatee waanu uga degnay magaaladii anay ku soo ururtay wariyayaashii هذا ومحن كهذا وهذا اللي من نقط إلى هاي سدنا أبوري أبود كيبا ما نان هذا لنا إما كان هذا اللي ما ينه كل جيجي بان سكايمي أدو قدرك إلى هذا الكلام بديه إنك ولو حدين شرعي بابا halkuu xidhay markaa في عيديده إما كان حدين تيل كوين إنك حدين دبقى بدن يد لينا وقبعه oo ciidanku u geysteen ciidanku waxa uu geystay meeqa qeexday waxa uu geystay xigtadiisa inanka halkaa isaga oo jooga halkan masalahan agtayda isagoo jooga ayuu u yeedhay ninka la yidhaa cabdi gaabuush sida laygu yidhi liibaan buu cabdi gaabushiyan isagaygu yidhi yaa kuu yeedhay baanu cabdi gaabuush buu ninbaa u yeedhay buu inankii igu yidhi anigu ninkiina ma garanayo war maxaa lagu xidhay waxba nin baa yidhi shiraaqlan fadhiyaa kaalay ninku waa cabdi gaabuush buu yidhi warna anugu kaama arkayn wixii aanad arkayn dee maan arkayn waa sidii laygu yidhi ninkaasaa u yeedhay askar adigu inankii waa la qabtay waa la kaxeeyey inankii wax la geeyey halkaa aynu ka hadlaynay haddii la geeyey maan anugu ka hadlin war hadli maaya baan idhi in badanna waan eegaayey oo waxaan isla maskaxdayda malaa inanka ciro iyo xigtadiisii waxaan ku samayn maayaa maalin dhaweyd baan shalay ayaan saldhiga meesha tegay jeelka markii aan jeelka u tegay waxaan u imi inankiio matal maskax ahaan u dhintay ilaa waa nin waxaan tiranayni ka hor yimaadeyni oo noloshiisii qumameeyey oo dil loo geystay oo jidhka maan eegina labada kub baan arko aad moodda in taysaga la dhacay oo diirkii ka tegay masalan waa maxaa meel walba way dhimaa waan iska soo baxay waxaan soo sheegayaa horta inankan reerkii uu daba cararayey ilaa qiyaamihii yaa dilay ciraana dilay cid kale may dilin waayo in adeerkii baabay wax dhex mareen intuu liibaan u yeedho in adeerkiina u yeedho ayuu si edebli odhan la liibaan maxaad rabtaa war adigana maxaad inankan weydiisanaysaa xaajada horta intaasay ku dhammaan leh haddana waa nin iyo aqoontii halkaa u dhaafi maayo inankaygun caawa hadduu dhinta ciraad liyo xigtadiisa abakor looge ayaa inankayga dilay muscabdallana wada eedayn maayo habar yoonisna eedayn maayo inankayga waa la dilay ciro wuu xidhay wuu dilay saakana wanaaguma hayuun baaban u malayn maxkamad ma la geeyey maxkamad waa la geeyey ayaamaa lasoo xukumay 7 rumaana lasoo siiyey waa sidii laygu yidhi saakana dee waxaan u hayaa minta inankaygu waa dhimaa eediisa markaa markii maxkamadda la geeyey eediisa maxaa lagu sheegoo maxaa lagu soo eedeeyey kolkaan u tago meel 3 dhowr meelood baan ka soo eegay ninkii madaxtooyada laga soo xidhay baa laygu jawaaba hadaysa waa kamaal cadaalo madaxtooyada xidhay kii madaxtooyada laga soo xidhay inankayga madaxtooyadaa dishay sawmaad garan ninku 10 sano daba socday uu aakhiro u seegay uu adduunka u seegay iyo raaskoodii baa dilay horta inankan reerkaasaa dilay habar yoonisna mid baan leeyahay horta inankayga tolkii wuu nacay maxay ku naceen waxay ku naceen waati buurtan la galay hargeysana dee waa magaaladii ciida gale reerka soo raacana waa isaxaaq waxay yidhahdeen war magaalada ha naga dumin waan dhex fadhiyey qof weyn baana wax iguma wataan war magaalada ha naga dumin
war waxba ka gaadhi maysid war reerka habaryoonisa guul ka gaadhi maysid markii dambe qof waliba wuxuunbuu usoo raacay xidigood xaggan u jeefoon buu arkay waar guul ka gaadhi maysid waar hana duminin waan ka hadlay kelmaddaa waxna ama guul ha ka gaadho ama guul darraa ha ka gaadhay inankayga waxaaba dili doona dowladdii kulmiyee fadhiday maxaa idinka gali baan ugu jawaabay caaqilada ciida gale iyo madaxdooda idinka walba way ii soo diray inankaaga qabso inan qaban maaya baan idhi dabeedna inankayga waxay dhahdeen habaryonistan uu daba ordayaa cirka ha ula baxdo yaa ku dhinankaaga qaba markaa waxay le ciidagal oo dhan hebel iyo hebel baa idaaf soomaali maaha ciidagal oo dhan inankaaga qabo ka reeb dhibtan ka reeb war iska dayban hala dile maxay idinka galay cabashadan habaryonisu gudbanaya waxa weeyaan cuqaal culimo tijaar khaladka waa la iska qabtaa inankayguna ninku fudud mahayne soddon magac bay u bixinayeen ilaa caweyska iyo ilaa galabtana hadalkiisay ku raaxaysanayeen saaka markay dowladdii heleen iyagu waxmay wadageysan habaryoonisay ma waxay iska waayeen 10 nin oo magac leh oo u taga war inanka maxaad ku haysata ma shaqadii oo kuu shaqeeyaad ku dilaysaa ma laga helin laakiin wixii ciidagale sheegayuunbaa dhacay inankayga dabadna dhibaatadii loo geystay da ilaahay baa ka ragga waa la dilaa wasalaadka bayraal diro caynaasha la dooragay goolka la dhaliyay siyaad barre waa kii dilay sawmaad garan inankayga si xun baa loo dilay si xunna waa loo xidhay cadow baa gacanta loo geliyey cadowna wuu u geeyey cadow aan iska filaynin waa reerkan ceriya raaskooda waay ugu dambeyn maamo maxay tahay fariintaad u dirayso madaxweynaha dee waa disheeye tooga baan leeyo igu kala hadhinay yaanu igu soo kala hadhin ninkaasu waa dishay matal buu u dilay maskaxduu ka dilay wuxuu walba wuu u geystay aniga ninkaa waxaan jecelahay caawa in baastoolada ay ku dhuftaan cunbaan idhi dee sunta kuugu soo dhiibo haddima tide akhre waa la tagaa laakiin silic waa ceeb iyo waxaan la iska filayn intaasaan horta kaga baxay kaa iyo habaryoonis waan ka cawday yacni waxaa la yidhaahdaa war maxaa ninkii ku dhintay soo maad garan tolkiina waxaan leeyahay nin baa gabiyo wuxuu yidhi garhka yogolku waa iga fog yahay wuxuu yidhi garhka yogolka wuu dhow yahay hadday gondar kor u dhaafto godabtiisa waa yaqaanin geesimiiganiye de waa sidaa intaasunbaa maxaa kalen ku daraa way maama dadka qaar ayaa le liibaan dowladdu ma xidhan faamiligiisa xidhay oo hooyadiibaa xidhay bal arrintaasi ka waran arrintaa waan ka warramay anigu 8 qof baan haystaa ballanka ilaahay day looguma dhaarte qof horta aan ka jecelay ilaahayba ma samayn qof anigu aan ka jecelahay ilaahayba ma samayn qofkayna waa beenaale faamili ma xidhan waxaa dhirtay reerkaa muuse cabdalle qaybta ka ee abakor luga miyuuha reerkaasaa xidhay dee markaa liibaan anigu maan xidhine raggu dabay caradayo u shaqaynayo akhriya adduunkaba u seegay ayaa ku riday waa ducaqabe igama hadda ilaa ummadoo dhan baa oginu ducaqabay oon dadkayga u jecelay ilaahay waa igaga maraagay oo tunaarta igu fogeeya qofaan ka jecelay inaan u dhala